wacan oo wanaagsan idil ahaantiin baa khiyaarta hawada nagala socotay waa 28ka bisha koobaad sanada 2021 kusoo dhawaada warbixin xasaasiya oo ku saabsan dagaalka ka dhex socda ciidamada dalka Eritrea iyo ciidanka dalka Ethiopia deegaanka Tigreega gudihiisana ku dhex maraya dagaal khadhaadh ayaa maalinkii saddexaad waxa uu ka dhex socdaa ciidamada dawladda federaalka ah ee dalka Ethiopia iyo ciidanka dalkaasi Eritrea dagaalkani waanay waxba isu reebanayeen labada dhinac ayaa intiisa badan waxa uu ka dhacay amaba uu ka socdaa magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Tigreega intooda badan gaar ahaan magaalooyinka Maqale, Adigrat, Shire iyo waliba magaalada Aksum ciidamada militariga dalka Ethiopia iyo ciidanka militariga dalkaasi Eritrea oo iyagu hawlgal military kula wareegay guud ahaanba deegaanka Tigreega ayaa u muuqda kuwa haatan isku soo jeedsaday kadib markii ay ciidamadii labada dhinac ay la dagaalameen meesha laga saaray waa kooxdii TPLF sida warku uu sheegayo khasaare lixaad leh ayaa waxa uu ka dhashay dagaalka haatan ku dhex maraya deegaanka Tigreega ciidamada militariga dalka Ethiopia iyo waliba ciidanka dalkaasi Eritrea ee iyagu ku sugan gudaha deegaanka Tigreega khasaarahani ayaanan si rasmi ah loo ogeyn balse sababta ugu weyn ee colaadda ama dagaalka haatan labada dhinac ka dhaxulaya ayaa waxa lagu sheegay in ciidamada dalka Ethiopia ay is hortaageen qorshe ay ku doonayeen ciidamada dalkaasi Eritrea in ay kagala baxaan deegaanka Tigreega gaadiid iyo waliba hanti aad u fara badan oo ay ka bililiqaysteen deegaanka Tigreega waxaana waxyaabaha ay bililiqaysteen kamid ah ciidamada dalka Eritrea ee ay diideen ciidamada dalkaasi Ethiopia in laga saaro gudaha deegaanka Tigreega agabkii dagaal ee ay dagaalka ku qabsadeen ciidamada militariga dalka Eritrea waxaana kamid ah waxyaabahaasi ay qabsadeen ciidamada dalka Eritrea ee ay kala wareegeen kooxda TPLF noocyada kala duwan ee hubka culculus oo ay kamid yihiin gantaalada ridada dhexe taangiyada saanad military oo aad u tiro badan iyo waliba madaafiicda gaadiidku xambaaro ee ay kamid yihiin qoriyaha loo yaqaano BMK iyo sidoo kale madaafiicda gaadiidku jiido iyo waliba nooc kaste oo hub military ah oo ay haysteen kooxda TPLF wixii ay ka carareen ayaa waxa la wareegay ciidamada dalkaasi Eritrea sidoo kale ciidanka dalka Eritrea ayaa waxa ay bililiqaysteen amaba boob ay u geysteen dhammaanba ama inta badan warshadihii kala duwanaa ee ku yaalay deegaanka Tigreega iyo waliba agab badan oo ay kamid yihiin waxyaabihii yaalay xafiisyadii kala duwanaa ee dawladda deegaanka Tigreega iyo xarumihii kala duwanaa ee dawladda federaalka ah ee dalka Ethiopia ee ku yaalay deegaanka Tigreega waxyaabaha kale ee ay bililiqaysteen ciidamada dalka Eritrea ayaa waxa lagu sheegay warshado ay lahaayeen dad maalgashadayaal ah oo ajaanib ah oo ay kamid yihiin Chinese iyo waliba kuwa Carbeed gaar ahaan dalka Masar iyo waliba dalka isutaga Imaaraadka Carabta dhammaanba wixii agab military ah iyo wixii kale ee ay bililiqaysteen ayay isku dayeen ciidamada dalkaasi Eritrea inay kala baxaan deegaanka Tigreega balse arrintaasi waxa is hortaagay oo ay u cuntami weyday ciidamada militariga dalka Ethiopia kuwaasi oo diiday hal shay ah in laga bixiyo gudaha deegaanka Tigreega kulamo iyo wada hadallo maalmo qaatay oo u dhaxeeyay ciidamada militariga dalalka Ethiopia iyo Eritrea saraakiisha kala hogaamisa ayaa ugu dambeyntii waxa uu ku dhamaaday is-afgaranwaa taasina waxa ay horseeday in ciidamada militariga ee dalka Ethiopia ay jidgooyooyin dhigtaan jid kaste oo ay islahaayeen waxa ku bixi kara ciidamada dalka Eritrea taasina waxa ay keentay in dagaal foolka foola oo muddo 3 maalmood socda uu dhexmaro ciidamada dalalka Ethiopia iyo Eritrea sida warka lagu helayo ciidamada dalka Eritrea ayaa waxa soo gaaray khasaare ba'an khasaarahaasina waxa kamid ah in agab badan oo kamid ah waxyaabihii ay bililiqaysteen ay ka reebtaan ciidamada dalka Ethiopia iyo waliba maleeshiyaadka qowmiyadda Axmaarada oo iyagu garab siinaya ciidanka militariga dalkaasi Ethiopia ciidamada militariga dalkaasi Eritrea ayaa kaalin mug iyo miisaan leh waxa ay ka qaateen
ka takhalusidii kooxda TPLF ee talada dalkaasi Ethiopia muddada dheer ka soo amar ku taagleynaysa balse waxaan meesha ku jirin biliqada iyo boobka baahsan ee ay ciidamada dalkaasi Eritrea ka geysteen iskuna dayeen dhammaanba wixii gacanta ay ku dhigeen in ay kala baxaan deegaanka Tigreega una daabulaan dhinaca iyo dalka Eritrea taliyaha guud ee qaybta waqooyi ee ciidanka militariga dalka Ethiopia oo horaantii bishani ka hadlay magaalada Maqale ayaa isagu waxa uu sheegay in uu aad uga walaacsan yahay dhaawaca qarannimada dalka Ethiopia ay ku keentay joogitaanka ciidamada dalkaasi Eritrea kuwaasi oo uu sheegay in ay qaadayaan tallaabooyin bini'aadanimada ka dhana waxaana uu sheegay in marnaba aanu ku qanacsanayn amaba aanu ku faraxsanayn joogitaanka ciidamada dalkaasi Eritrea ee gudaha deegaanka Tigreega halkaasi oo uu sheegay in ay ka geysteen falal arxan darro ah iyo waliba dhibaatooyin kale oo uusan magacaabin taliyaha qaybta waqooyi ee ciidanka militariga dalkaasi Ethiopia generaalku waxa uu ku sheegay joogitaanka ciidamada dalka Eritrea ee gudaha deegaanka Tigreega masiibo ku habsatay guud ahaanba qarannimada dalka Ethiopia waxaase uu sheegay sababta soo gelisay ciidamadaasi in ay ahayd dagaalkii ay kooxda TPLF ku qaaday saldhiggii waqooyi ee ciidamada militariga dalka Ethiopia ee ku yaalay duleedka magaalada Maqale ee caasimadda deegaanka Tigreega marka laga yimaado dagaalka khadhaadh ee haatan ay birta iskaga aslayaan ciidamada militariga dalka Ethiopia gudaha deegaanka Tigreega ayaa waxa soo baxaya baaqiyo caalami ah oo loo jeedinayo dawladda dalkaasi Eritrea in ay si degdeg ah ugula baxdo ciidamada kaga sugan deegaanka Tigreega waxaana baaqyadaasi ugu dambeeyay mid ka soo baxay aqalka cad ee looga taliyo dalka Mareykanka kaasi oo ku amray amaba ku wargeliyay dawladda dalkaasi Eritrea in ay sida ugu dhaqsaha badan ugula baxdo ciidamada kaga sugan deegaanka Tigreega kuwaasi oo dawladda Mareykanku ay sheegtay inay ku joogaan gudaha deegaanka Tigreega si sharci darro ah isku soo wada duubay xaaladda guud ee deegaanka Tigreega ayaa laga dayrinayaa waxaana haatan suuragal ah in ay xaaladdu ka sii darto mar haddii halkaasi ay ku dagaalameen ama ku dagaalamayaan ciidamada militariga dalalka Ethiopia iyo Eritrea oo iyagu isu gaashaan buuraystay ka takhalusidii kooxda TPLF kuwaasi oo iyaguna dhankooda wada dagaal dhuumaalaysiya iyo dagaal foolka foola oo ay kala hortagayaan ciidamada dalalka Ethiopia iyo Eritrea ciidanka dalkaasi Eritrea ayaa lagu waday horaantii bishani in uu ka baxo guud ahaanba deegaanka Tigreega balse kooxda TPLF ayaa ku khasabtay in ay ku sii nagaadaan amaba ku sii sugnaadaan gudaha deegaanka Tigreega kadib markii jidgooyooyin ay u dhigeen ay ku gaarsiiyeen khasaare baaxad leh oo isugu jira dhimasho xad dhaaf ah qaybna ay ka ahaayeen saraakiishii ugu sarreysay ciidamada dalka Eritrea ee ku sugan gudaha deegaanka Tigreega sidoo kalena laga gubay gaadiid aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin gaadiidka gaashaaman taangiyada iyo waliba gaadiidka xambaara hubka culus iyo sidoo kale ciidamada mid ka qaada khasaarahaasi oo noqday mid ku khasba ciidamada dalka Eritrea in ay sii joogaan gudaha deegaanka Tigreega waxaana haatan muuqata in iyaga iyo ciidamadii militariga dalka Ethiopia ee ay garab ka siinayeen haatan ay isku jeesteen kadib markii ciidamada dalka Ethiopia ay ka biyadiideen boobka iyo biliqada baahsan ee hubka iyo waliba agabyadii kala duwanaa ee ay la wareegeen ciidamada dalka Eritrea markii ay isku dayeen in ay kala baxaan deegaanka Tigreega una daabulaan dhinaca iyo dalka Eritrea dagaalka ka dhex socda ciidamada militariga dalalka Ethiopia iyo Eritrea ee ku wada sugan deegaanka Tigreega ayay labada dawladoodba isku dayayaan in ay qariyaan balse waxa warkani soo bandhigay qaar ka mid ah saxaafadda adduunka diblomaasiyiin iyo waliba dad ku sugan deegaanka Tigreega oo iyagu siyaabo kala duwan warkaasi u tabiyay